haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal sida inay barayso taariikhda casriga ah ee ummadihii gobonnimadooda u soo halgamay, dhaqdhaqaaq kasta oo waddani ah wuxuu lahaan jiray xoogag la col ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray. codka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraada oo uu ka heli karo. dhinaca kale waxaa isaguna jiray cod sokeeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay, kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa, gumaysigana u ahaan jiray hub dhaqdhaqaaqyada waddaniga ah uu kula dagaalamo. dhaqdhaqaaqii xornimodoonka ee xisbigii soomaaliyeed ee leegadu uu hogaaminayay waxba kama u duwanayn kuwii afrika iyo aasiya ka jiri jiray ee la ayniga ahaa. sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen. colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo, siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad soomaalida u gumaysto. leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaas gaashaanka ayay ku dhufteen, taana waddaniyiin fara badan ayaa siric iyo saxariirba ku mutay. sida haddaba laga yaabo in soomaalida qaarkeed uu ka warqabo, sanadkii 1950kii iyada oo dhab ahaan ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso, waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1960ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto, inta ka horaysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona, isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah. go-aankaas isaga ah talyaanigu guul buu u qaatay. wuxuu u laqbaystay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay. suu markiiba wuxuu bilaabay siduu go-aankaas u naxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadeed uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah looga tirtiri lahaa, ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano. umase suuragelin. leegadii buu tallaabo ka qaadi waayey. si kastaba ha ahaatee loolan hor leh oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka aloosmay. maamulka talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii xisbiga ku ururayso, ayuu go'aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro. kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo soomaaliyeed wata asii gumaysi raac ah. kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan, inay ka dhaadhiciyaan weligiis iyo waaqiis inaan talyaani waana dalka ka bixi doonin, gobonnimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay. xisbiyadaas ka sokow, gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhex daayay 10 basaas oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya, dadka inta ururka u heelanna si walba u cadaadiya. labadaa colba si siman ayay leegadu isaga rawday. wixii lagula diriri jirayna waxa u badnaa hubka ay soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto, waa hubka maansada. kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon. wuxuu gacantooda ku jiray maansiyahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goorgabayadooda ku ceebayn jiray soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray. basaasiintii muuqa iyo magaca soomaaliyeed lahayd asii aan ka sariigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooyaan. allaha u naxariistee maansayahanadaas waxaa ka mid ahaa cismaan yuusuf oo maansooyinkii uu ka tegay laga garan karo inuu jaajuuska aad u nacbaa una daraabi jiray. gabay caan ah oo dhextaalkiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mid ah wuxuu cismaan ku soo qaaday, welibana ku habaaray isaga oo soomaali ah qofka gumaystaha u qabaana ee isagoo u xilanaya dhuuni iyo garaaddo uu ka helo
uu dhulkuba ganac ka yahay. waa tuducii ahaa galladaha ilaah iyo xurmada garan marjaajuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guuldarraystuhuye garaadada la siin waxa ag yaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyow garnaqi doona. waa tahay siday suugaanta soomaalidu ina barayso, guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansadeenna. wax dhan buu gabyaaga soomaaliyeed tixihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan, dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kal hore geelashii ay ka moola duugeen. timo cagaar aan tiro lahayni dhaaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen. wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraarugga siyaasaddu xilligii uu soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey, waxna ka dooriyey xidhiirkii bulsho ee u dhexayn jiray. wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee legadu ay bilowgiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala teggeeda inay ku nacsiiyaan, wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. markaas baa la gaaray in magaca qabiilka oo carabka lasoo mariyaa uu ceeb noqdo, iska daa in wax lagu qaybsade. qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee gubaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban. markaas bay shisheeyihii dalka haystayna ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah, ceelashoodii iyo carshintoodiina kala wareegay. af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonnimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeceshahay. xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleele iyo horweynba leh oo iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo talyaanigii iyo ingiriiskii dalka haystay ay ula jeedeen. isbeddelkaas maansadii gubaabada ku dhacay waxaa hormuud u ahaa allaha u naxariistay cali xuseen xirsi oo gabayadiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaa loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida oo keliya. toddobaad walba wuxuu dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraaro dhiigga kicinaya, soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damanaanshaha ku tilmaaman, kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa kala wareegto. tixdan soo socota oo sidaan filaayo uu gabyaagu tiriyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii gubaabada ahayd ee soomaalida uu ku baraarujin jiray. wuxuu yidhi: dabka baxaya, danabkaa qarxiyo ololka duulaaya, digtaya ee dhaydaaraha burburay dagalka qiiqaaya, dayuuraadka kacay armiga lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee duunka ka coloobay. dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulkaa laysku dilayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahee anaa degaya iyo diiday baa dhiig ka da'ayaay. ragna dalkoodii waa daafacaa, daacad buu yahay demanaanta soomaalida daahan weligeede hadday 100 dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane. wanduqoobay waa inuu dhurwaa daribka goostaaye, wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.